السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. waxaan leeyahay wax badan anigu ma dhihi karo, waqtigii baa inugu muxuu ahaaye dheeraaday. waxaan si idinku soo koobi: cilmigu saddex wej buu ku yimaadaa. lug cilmi buu ku yimaadaa, cumrina waa ku yimaadaa, xarafna waa ku yimaadaa. markay saa tahay, lugtii iyo cagta waa isku mid. waa nin dal badan maray oo wareegay oo akhlaaq badan iyo dhaqamo badan soo arkay. cumrina waa sida aniga iyo wixii ilamida oo waqti dheer soo jiray oo duruuf kala duwan iyo ummado kala duwan la soo kulmay. midkaasna waa taariikh ahaan, laakiin midka rasmiga waa xaraf. xarafkaa xagee ka yimaadaa? xarafkaa wuxuu ka yimaadaa rabulciza, cirkiya dhulka allihii hagaajiyey, badda iyo bariga allihii hagaajiyey, janniya naar allihii hagaajiyey ayuu ka yimaadaa, habeen iyo maalin hagaajiyey. xarafkaa isaga ah waxaa weeyaan risaala ama nuur, waxaad tidhaabaad odhan kartaa. markaasuu wuxuu u soo dhiibay khalqi oo khalaa'iqdiisa ka mid a oo isagu u doortay. sidaad ogtihiin, malaa'igta nuur baa laga abuuray, jinnigana dab baa laga abuuray, annagana turaab baana laga abuuray. malaa'igta rabbi wuxuu mid walba maalintuu abuuray u dhiibay buu hayaa. ma caasiyo, ma daba maro, kama daalo, kama jirado, kama qandhado, kama seexdo. sidaa daraaddeeda waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo meelay hurdaan iyo kama rabaan, loomaba arrintaa looma yeelin. cibaadadii alla u khilqay keli ayay ku ekyihiin. kuwaa maalintii la abuuray sujuud la amray sidii u sujuud, kuwaa maalintii la abuuray rukuuc la amro sidii u rukuuc, kuwaa maalintii la amray taagan oo sidii u taagan. mid walba maalintaas ilaahay wuxuu ugu talagalay buu hayaa, ismana khilaafaan. marka cadadooda miyaa 7 samay degan yihiin. wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu. cadadooda alla unbaa waxad kale uma jiro. sidaa daraaddeeda mid iyaga ka mida oo isagu u doortay oo jibriil la yidhaah ayuu fariinta yuu u soo dhiibi jiray. hadda ummadda markaa fariinta in la gaadhsiiya la rabo, nin ka miduu ka dooran jiray, maya dumar ma lahayn, nin ka miduu ka dooran jiray. ninkaasuu dhihi jiray fariintan u gee. risaaladu ile waa fariine, faa iyo saa ugu sheeg, bar. asaga markaa ha gudbiyo fariintii ilaahay, ha gudbiyo sidii hadda sheekhu inoo sheegayay. markaas sanadku 3 buu joogaa. muxuu ahaayey ninkaas rasuulka ah iyo malagii u keenay iyo allihii ay arrintu ka timid weeyaan. marka sidaa daraaddeeda fariinta iyada ah waa fariin haddii ilaahay mahayay loogu talagalay if iyo aakhira in lagu liibaano ninkii ay hogaamiso oo qabsado yeela. adduunna inuu muxuu ahaa nolol wanaagsan oo raaxa leh oo muxuu ahaa ilaahay raalli ka yahay ku noolaado. aakhirana guriga aan wada maqalay in muxuu ahaa u tegi doono. sidaa daraaddeeda muxuu ahaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam ee muxameda eed ogtihiin ambiyada inuu u dambeeyey oo wax rasuuloo ka dambayn hayaa usan jirin. sidaad wada ogtihiin, ilaahay wuxuu ku magacaabay kitaabkan qur-aankas u dhiibay nuur. isaga naftiisana allah wuxuu ku magacaabay nuur. isaga markuu nuur ku magacaabayay wuxuu yidhi: qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiinun fi suurati almaa-ida niskeeda hore. nuurun waa isaga, wa kitaabun mubiinna waa qur-aanka. qur-aankiina maxaa isna lagu magacaabay? muxuu yidhi ilaahay: yaa ayuha annaasu qad jaa'akum burhaanu min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiina. marka laba nuur oo lasu siiyey oo lasu dhiibay yaa innaga haddii baydnahayay
إنه هرتال مجعين جر لبدي النور منا بحوها هي لبدا أنا ميكت كو قبنو بدح مدي كره لبدا ميكت أن كو قبنو السجي مركز ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم نور كاها حدنا إلهي ملك الوحكير مداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحف فينوس شدا أو كو دارنا هاي كو افتمن هاي ويان مركا نينكي دونيو أما أنت هفرديو أما مساميها خبر كسيكا لهو قارو أما هريبا وحو قارين نينكي دونيو افتنكا إنو هقاميو وهذا ليبانتي آخرات كل ليبانتي أدون بات كل ليباني هدي إلهي ما هي تا يلا وإنانو إنك أن كنت لك الله علماء إلا وحيغا يمت من كستاو يمت جنبو يمت انسبو يمت أيها قاضي قونبو يمت ملايكتي مركب وحدي يساقها هو نور كان كفائدة يسنو أو نسيدو إنو يمت إنك علماء هل إنو أركو إنك أو نور كي لبدي النور سيدنا أو كدقن أو محو هاي إنو قامين أيان حدي إلا إنو أركو إن با إنو قدين بدن إلا سيدا الوضع أكتهين ربي سبحانه ما آذين كرنو أو آذين نقومالها لكن وحاد أكتهين كنك الروح سقال بقول سقاشن إيا سقاشن إنو الدياري قدك دبكها والله المستعان سبحانه الله ربك يفعل ما يشاء محد يشي مدي كرنو هاي كنك وحاك سوهري روح باك سوهري روح أقول يورك سلام الدياري سيأينو أنقرنو روحي إلهي إنو قدقو إيا كوي إلى الراعة هذا وحا إلتا يعني وأن أرت إلاك مدى كودة دالو مركا نفتين حقاجينو أو توسينو أو نسأرقنو إنان هقان سني مركا يلا ويان مركا عمل كينينا صدح بو كل ركبان يهي صدح لا مدوا أساس لبنا أساس كي يكور ساريين صدح ذو مدوا قلبك مدنا وقول مدنا وحويان فعل جوارح ويان مركز ساد أكتهين قلبك ولا ليال وأساس قولي نكي نساهيا وإنه هدبا انت يهي محو هاي طبقات كيسة يوجد كيسة قضاء مركز برا يردقح إيا اسميت يحسو لنبو كب حيا يحق سيء قري وويشو وسنو دقاقين عمل كاني لبدي ميلوذي كالي هدان ربنا إنو محوها عمل تاغن أو إن أنفعه أو لينو أركو نقضو أساس كان حقا جنو أساس كان واد إيقا علمي بدتين أنيقا سيدو رمتا علمي عدقيت بان إذن داير هاي لكن علمي حرف إذن كاين داير وحو أول بأحابنا انتي سيارين ومن سيئي اللوب حيا سبحانه قراني مركا علمك أساسك شيء أساسك وقلبك وحد أكتين وإيقا أكتين إنه النبي قال يجري صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة ألا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نقولوا ويقعد ببضتها الكلمة رجينا أمهات الستة غير كذا غيرنا هي وحلم ذا هي مفسرين تينا كل واد يقعد ببضتين وحاد أركيسان أساس كعمل كالصالحة إنه قلبك يعني قلبي هدام وناجنه وأمراض القلبية أنكسفينه سيدا حسدك سيدا رياء سيدا هاي نعا يعقدها قبلية السنة كأكل سنة هذا أنكسفين محوها وح الله وحي ساسه كلاء أو إلهي وكبرك كمذا عجبك كمذا هذا أنكسفينه عمل قلبك يعني وهاجاجي عمل كأني كلا وهاجاجي كي قولك هو هاجاجي كي فعلك هو هاجاجي أساس بويا لنا يا وحنا نكرجيننا إلهي مركا إنه أساس كاس ملك نكستبا أنفعه أو هم قريه يكرجيننا هل نحيانا نفردين إن محوها بقول كيبا سقالي السقاشر إن محوها حق سيدة الربو قاسان تايينا نفردين هرتين باللوايي وصلسي باويدي سيدة أكتهين نبي الله نوح هدي بأنها أدبي أمدي سؤبان داي نلقي بحسي محاكر رميه
ما فرتن ميوها حربه ما آمن معه إلا قليل ما قرتين marka middaa waxay ku tusaysaa arrin aan muxuu ahaa innaga gacanteena ku jirin laakiin adiga dusha waxa kaa saaran dadaal taa waxayna tusi arrintaa iyada ah nabiga sala allahu calayhi wasalam oo muxuu ahaayey madiina jooga oo masjidkiisa maalin jumca khudba usoo diyaar garoobay muxuu ka bixiyey 16 fulaan ukhrij min masjidina annaka munaafiqun 16 buu ka saaray masjidkeena ay yimaadeen dadkayna tusahayaan inay ka mid yihiin dadka muuminiinta 16 buu ka saaray ilaan ilaahay baa muxuu yidhi ilaahay am xasibtum تدخل الجنة maya فحسبتم أنما خلقناكم maya fi suurati muxamed أم حسب الذين am xasiba aladiina في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم wat ولو نشاء لأريناكم فلا عرفتم وكا ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم ولا تعرفنهم سيما marka ilaahay markaa wuu sheegay mid midba u sheegay markaas war ka bax muraafiq ka bax wuxuu yidhi cumar radiallahu canhu ardaa oo yar jalowgeeyo dib u dhacay kuwii oo yaaci baa ka hor yimid war maxaa miyaa la tukaday maya kuwa ogaabaa waxay yidhaheen nabigaa soo eriya waa munaafiqiin ma garateen walaalayaalow toosnaan la wada heli maayo aan muxuu ahaa dadaalo oo aan geesi noqono oo xaqa aan iskaga ku dhagno intii kuu soorooda kii kuu raaca haddii baad nahay ha ku raaco marka waxaan leeyahay anigu oo markay ku soo koobi habkan hadda cilmiga uu muxuu ahaa u faafahayo waa hab ilaahay inoo yasiray fiiri raggan waxaa laga yaabaa guryahoodii inay meelahan wada yihiin waxaa halkan ka dhici kartaysa dadka guryaha degan aabbiya hooya wiil iyo gabadhba halkan darsi ka taxan inay ku taxmaan yaa suuragal ah taasaa suuragal ah annagana aniga waktigii aan soo maray iyo wuxuu ahaa iyo waktigii ka horreeyeyna waxaa lagu soo maray duruus xalaqaada sidaad wada ogtihiin ragga ahaa taabiciintii atbaacu taabiciin haddabeed muxadisiintii aimatu daa muxuu ahaa walcilmi kulli iyo wixii ka dambeeyey waxay ku soo mareen xalaqaad gajgaaja rafaad oon silac waxaa jirta on hadda ka hor arkay kolbaa aragtee nin inuu aabbihii waraaq u qoray 5 salaadood yaan hal suduuc ku tukaday buuli waa subxii duhar casar maqrib cishaa maxaad meeshaa ka fahamtay inuu ninkaa engegay dhaacaan uusan jidhkiisa ku jirin idid walaa xaar walaa kaadi walaa inuu qallafay baa ku jirta ragga saasay wax ku baranayeen saasoo kale wax ku baranayeen anigan maxameda inala hadlay anigoo magaalooyinka soomaaliya ka mida jooga yaan aniga saaxiibkay subxii kitaabkii waan u kici weynay gaajo daraaddeed aan soo dhegaysan jirnay markaasaan iska soo luudnay magaaladii baan soo dhex marnay 2 shilin baan helnay shilin waxaan ku gadanay 10 xabo muusa kaana 5 buu laqay shilinkii kale biyo macmacaan oo meelaha u gadahay aan ku gadgadanay sidoo dhax ku kala qaadnay ma garanaysaan marka maantana maxaad arkaysaa jaamacad baa la sufuray ma sacuudi baa la aadaa qatar baa la aadaa hadii kuwait baa la aadaa waxaa la aadaa masar baa la aadaa meel kastaba waa la sufuray waa la sugu yeedhay waddankeeni bay ka furan tahay oo haddii bay nahay tii oo kalena yaa ka furan tahay marka walaalayaal nicmaan haysanaa nicmada aynu haysano aynu inaga culimada iska bilowno ku shukrigeeda aynu iska bilowno inkastoo shukrigu uu yar yahay marka wadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa yaanan waqti idinku dheeraynayna waxaa mahad iska leh oo shukri iska leh allah subxaanahu wa tacaalaa allihii wuxuu ahaa nuurkaa soo dejiyey nuurkaa noo keenay nuur haddabeen nahaye ambiyada saaya muxuu ahaa ku nuuray ummadaheedii wixii ruuxbee raacay yaanu ilaahay ku mahadinaynaa waa naga mudan yahay waxaa kaloon idinku darin dawladanadan yaan ku mahadinaynaa nabadda ayna siisay xorriyadda aynoo siisay diintanada saanu u dhisayno saanu wax u doonayno saanu wax u barayno anna lagu faragelinaynin mahad baan u celinaynaa dawladada arrintaa anigu waan inay sax tahay yaan aaminsanahay maxaa sababa nabigu sala allahu alayhi wasalam isagoo joogi waayey maka oo muxuu ahaa adeeradii ay tuman yihiin yuu ka cararay duurkuu iska galay isaga oo nafti inay ka baxda halisa oon iyo gaajo iyo rafaad maka on markaan sidai hadda u camirintaan u camirnayn
يعني كم إذا دقيدي قريشين يا الله كل ما مطعم ابن عدي ليلة ورمحان دعي ساسا هاي ستور ولا كان وسوق هذا سوق مكو مرمريي مركو تصيد ذكي إنه سوى هذا بدو هاي حربته كع مركا محال سببه وحاول مركا وحاجري جري نن هذه الوارك نن مجانا سوى ولا لما تهان كرين ولا سكو جبي مركا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتي بدر عضي waxaad ogtihiin toddobaatan laga dilay toddobaadna la qabtay toddobaatan markii muxuu yidhi haddaba toddobaatankii uu hadlaaye kuwan kada uraya ee qurunka hadduu maanta Mudcim ibnu Cadiy nool yahay oo i su'aalo inaan usii daayo waan usii dayn lahaa undoora feere Mudcimna mushrik ku dhintay gaalnimo ku dhintay kuwan hadda uu leeyahay hadduu ii weydiiyana waan usii dayn lahaa waa mushrikiin oo gaala marka meesha maxaa tahamteen ninkii ihsaan ku sameeya mahad buu ku leeyahay horta dhig walba ogow gaal mabina haduu yahay muslim haduu yahay wuxuu doon ha ahaado ninkii ihsaan ku sameeya mahad buu ku leeyahay taana waa inaad dhalinyaro ogaataan seflabood ha noqonina hadba diintiisay ku suuroobi baa lagu wadaa waxaad ogtihiin nabigu intay u suuroobi weyday inuu Makka dad ku hay inuu kaca xabashi aada xabashina markaa waa gaala مسيحي أويان محاد دم دتي باكنتي وحيد ماشاس يعني بقرة أو نوسي صدقك اللي قلت لنا ينجوه أو صادر رفتان إلهي هو عبد كرتاني كعادة ما تيسو ما تنوكل هذا أني نوايسن والله بالله أنا فهم جيجا مدة أنه ما أنت هايسنه ما هو هستعين يجيب وأنا فهم جيجا سو هذا قرني مركز صادرات سود وهذا مركز كان دتي قلقالية يوم دتي محمد بسيو dadkii ka shaqeeyo Allah idin ka ajirsiiyo Allah idin ka ajirsiiyo Allah idin ka aqbalo Allah idin kaalmeeyo kulligeena waxaan leenahay wuxuu ahaa ilaahay isku keen cafiyo ilaahay isku keen saamaxo khatmada Allah inuu hagaajiyo wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah